laba baylood oo ku guda jiray duulimaadka diyaarad rakaab ah oo ay leedahay Ethiopian Airlines ayaa hal mar hurdo la dhacay ayagoo ku jira hawada sare taasoo keentay in ay gafaan xilligii diyaaraddu ay caga dhigan lahayd. Dhacdadan ayaa ku dhacday horaantii usbuucan diyaaradda Ethiopian Airlines oo ahayd Boeing 737 oo flightkeeduna uu ahaa 343 kana soo duushay magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan kuna socotay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Sida uu wariyay Aviation Herald oo ah website ka faalooda shilalka diyaaradaha, diyaaradda Boeing 737 ayaa ku duuleysay joog gaaraya 37,000 oo feet oo u dhiganta 11,277 mitir markii duuliyaashii waday ay hurdo la dhaceen ayaga oo fadhiya halka diyaaradda laga hago, taasoo sababtay in diyaaraddu ay soo gaarto garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa Bole International Airport ayada oo joog sare ku duuleysa isla markaana aysan suurtagal ahayn in ay caga dhigato sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in diyaaraddu ay xawaaraha soo yareyso joogga sarena ay hoos uga soo degto markii ay airportka ku soo dhawaato. Waaxda kontaroolka gaadiidka hawada Itoobiya ayaa marar badan isku dayay inay xiriir la sameeyaan duuliyaasha diyaaradda balse way u suuro geli weysay ilaa markii dambe qalabka caawiya duuliyaasha ee sida otomaatiga ah u wada diyaaradda oo ilaa halkaasna soo gaarsiiyay uu gambaleel ku kiciyay duuliyaashii. Markii labada baylood ay hurdada ka tooseen ayay dib ugu soo celiyeen diyaaradda oo airportka dhaaftay waxayna ku qaadatay muddo 25 daqiiqo ah oo kale. Maamulka shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo ah midda ugu weyn Afrika ayaa sheegay in labada duuliye shaqada laga joojiyay baaritaan lagu sameyn doono sida wax u dhaceen, inkastoo uu sheegay mas'uulkaas u hadlay shirkadda baaritaanka ka hor inaysan wax dhaleecayn ama eedayn ah dusha uga tuuri doonin duuliyaasha. Waxa uu sidoo kale intaas si raaciyay in ay ka shaqeyn doonaan badqabka diyaaradaha iyo dadka rakaabka ah ee saaran. Dhacdadan ah in diyaaradda oo socoto la seexdo ayaa mararka qaar ku dhacda duuliyaasha diyaaradaha, waxayna sidaan oo kale qabsatay bishii April ee isla sanadkan laba baylood oo duulinayay diyaaradda ITA Airways oo laga leeyahay dalka Talyaaniga, flightkeeduna uu ahaa AZ609 taasoo ka soo duushay garoonka John F Kennedy International Airport kuna socotay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, taasi oo sidaan oo kale ay wada seexdeen labadii duuliye ee diyaaradda waday, inkastoo markii dambe si badqab ah ay ku caga dhigatay. Inta badan waxaa loo sababeeyaa daal xad dhaaf ah iyo saacadaha shaqada oo ku bata duuliyaasha.